السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعن إذا لحانتي مداوضة يالميل كاستوات جوبتان كنا سو دوادا وركي رويل واني كاقسو تبيه استوديه سمقالة لندن. محكمة عدمة قلب كسيدي دولة الصومالية يا مانتا حكم ديلا كفلسي شخصي لا شيغين وديلا الله ونحا صحفي عانكا حسن يوسف أبسوغي ولبدي كوني لبي طبانكا لغو ديلا مقالة مقدشو عبل أبو كريا وربحين أرينكاسي كسابسن مقدشو كسو دراي maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxay xukunkan dilka saaki ku fulisay aadan sheekh cabdi oo la sheegay inuu ahaa shakhsigii dilay wariye xasan yuusuf absuge oo bishii September ee sanadii 2012 lagu dilay gudaha degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir haddaba dilka saaki ay fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ka warbixiyay afayeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Muuse 17 bishii 8 2013 maanta iskool bulsho waad arkaysaa in lagu fuliyay xukunkii maxkamadda ciidamada darajada koowaad iyo maxkamadda ciidamada darajada sare ay gaartay taariikhdu markay ahayd 22 bishii 9 2012 eedeysanaha gacan ku dhiglaha ah ee shabaabka ahaa ee aad arkaysaan halkan maanta lagu toogtay magaciisa yiraahdo aadan sheekh cabdi sheekh xuseen ina soorur إبراهيم أفريقيا جدنا أها السنة سوى دل سبرة ودلي الله نحرسته وريه الأورنجري حسن يوسف أبسوي محكمة دوحي فرست درجة كوات حكم كاس إلى دقيقة دعوة ديسة تضيع توكي بيش سدحان لو كل إيوه سدحية توكي وحلو عدات إنه إذا سنة سيجع عن كل جليه فرق جيستي وحلو حكم تدرته وشاه وسوقاتي رعفان وسوقاتي محكمة الصراع تعرض مركز هالشيء إلى تكي بيش سدحات لو كل إيه سدحية توكي عفان كانت محكمة سرواق بشي محكمة السنة دب أي دعوة سوق الشيء ويقولي ستي تضوي لما تنكي بشي تضبط لما كل يسد هاي توانكي محكمة السنة كانت دعوة سوق الشيء ويستفعل ويقولي ستي وحوا عداتي إنه كسفوا بيستفعليه هرو لو سوق هذي يعقول لي لها أو أهدلك إنه سوق تسبر كده لك عديتي بركاتيان شو حين أيضا معين ما أنتوا تضوي توانكي بشي سديدات لما كل سدحي توانكينا سيدا على وضع الكيسان وحال لقياني قوابتي لغفري لها dilka toogashada ah waan la gudtay saacadu markay 2 saac ayaa la fuliyay dilka toogashada ah sidoo kale xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cabdikaafi Hilowle Cusmaan oo isna ku sugnaa halka uu xukunka ka dhacay ayaa isna warbaahinta halka kula hadlay waxa weey shaqadayna waxa weey qofka la dila ayaan duugnaa dawladda hoose macnaheedu waxa weey waxay qabataa shaqadeedu waxa weey in ay qofka la toogtay ama la dilay ama muxuu ahaa la aqoon waayay inaan asturno waayay shaqadayna waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo maanta muqdisho waa ninkii koobaad ee shabaab ee lagu dilay gobolada Beledweyne iyo Baay waa lagu soo dilay 2 nin laakiin waxaan ka hadlayaa muqdisho maanu si aad ogtiin saxaafadan ka hadlay waxaan nin shabaab oo la dilay lama arag baan sababa loo dilay maxay tahay nin baa babba ku dhuftay 2 askari labada askari way dhinteen waxaa laga daba wadaa qolofkii bambada ayaa laga daba wadaa oo muxuu ahaa ii sheegay waxa la yiri kan marqaati ma loo hayaa war marqaatidan loo haynin maxay tahay waa bambadii lagu wada gaanjadeedii waxaan rabnaa in shabaab la toogto la dilo shabaab waa la dili waayay maanta ugu horeysa shabaab la dilay waa ina cadeynaa shabaab waxa leenahay marka la simaan lootin nin jiis ah oo ciidamada ka tirsan oo sanca joogay ayaa nin shabaab qabtay oo is yaqaaneen waa soo waday 5 kuna loo gaaray soo baawarkiisa ku dhaxwada sida uu soo waday markuu madaxtooyada erideeda marsiin